saxaafaddu waa awoodda koowaad ee dunida maanta marka laga soo tago dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda casriga ah, waxaana caalamku sameeyay xeerar dhowraya xuquuqdooda iyagana xadidaya. balse Soomaaliya waxay noqotay meesha ugu badan ee wariye xaqiisa lagu tunto. waa la jir dilaa, la xiraa oo la dilaa, lana bahdilaa si sabab la'aan ahi. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd maanta maruu madaxweynaha Puntland booqanayay magaalada Boosaaso. waxay ilaaladiisa gaarka ah xadgudub iyo jirdil xoogan u geysteen laba wariye oo ka tirsan bahda saxaafadda gobolka Bari ee Puntland, iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo. waxaana shaashaduhu qabanayeen iyagoo lagu jiidiidayo madaxweynaha hortiisa, balse isagu dan iyo heelo kama lahayn tacadiga loo geysanayay suxufiyiintaas oo wuxuu iska watay khudbadiisa. madaxweyne Dani markuu ololaha ku jiray wuxuu sheegay inuu dhowrayo bahda saxaafadda, balse saxaafadda xorta ah waxay kala kulmaysaa bil aan wanaagsaneyn xukuumaddiisa curdinka ah. waxaana mararka qaarkood dhacda in loo diido inay bulshada u tabiyaan wararka ka jira xarumaha dowladda sida madaxtooyada. haddaba saxaafadda xorta ah miyay mudan tahay in lagula dhaqmo habdhaqankan aan wanaagsaneyn ee ugubka ee Villa Puntland kula dhaqmayso saxaafadda? xeerka saxaafadda Puntlandna maaha miyaa mid shaqeynaya oo ilaalinaya qofka suxufiga xuquuqdiisa, mise waa mid magac u yaala? Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf, Cabdilaahi Bakayle, wakaaladda wararka Bakayle Media Pro, Garowe.